aan ku bilaabanno guud ahaan wararka qaaradda Afrika. COVID-19 hadda waxa uu ku baahay ku dhawaad qaaradda oo dhan sida laga soo xigtay xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee Midowga Afrika. Kiisaska ay waxayna ku dhow yihiin 9,000. Tirada ugu badan ee la xaqiijiyay qaaradda waxay wali ka jirtaa waddanka Koonfur Afrika. Wariye ku sugan Johannesburg ayaan qaybta dambe kula hadli doonaa. South Sudan waa dalkii ugu dambeeyay oo kiis laga soo sheegay. Ghana oo diiwaan gelisay in ka badan 100 kiis oo corona ah ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin dheeri ah oo wax looga qabanayo safmarkan. iyadoo dadka la siiyay biyo bilaash ah 3 bilood ee soo socota ayaa madaxweynaha waddankaasi Nana Akufo-Addo sidoo kale waxa uu ku adkeeyay shirkadaha bixiya adeegyada biyaha iyo korontada inaysan waxba go'in iyadoo qaybo ka mid ah Ghana ay toddobaadyadii dhawaa ka jirtay biyo yari. shaqaalaha caafimaadka ee safka hore ku jira 50% ayaa la kordhinayaa mushaarkooda. madaxweynaha waddanka Malawi iyo dhammaan wasiirada dawladda ayaa mushaarkooda laga dhimay 10% 3 bilood si loo ururiyo lacag wax looga qabanayo safmarka. madaxweynaha ayaa hadalkaasi ka sheegay mar uu dahfurayay qorshe dhaqaale ee uu dalka leeyahay. xarun lagu baaro viruska corona oo dhismaheedu ku socday waxayna ku taala Abidjan magaalada ganacsi ee Ivory Coast ayaa la burburiyay kadib markii dadka deegaanka ay ka cawdeen in xarunta laga dhisay meel dadku ku badan yihiin. muuqaalkan waxa uu muujinayaa koox burburinaysa dhismaha iyaga oo dhulka dhigay qalabkii dhismaha kadibna dab ayay qabadsiiyeen. mas'uul ayaa sheegay in aan marnaba loogu talagelin xarun dadka lagu daaweeyo oo ay kaliya ahayd in wax lagu baaro. kiisaska Ivory Coast waxa ay ka badan yihiin 260 dhimashaduna waa 3. dawladda Kenya ayaa soo rogtay bandow dheeri ah. haddaba wariyaha BBC-da Cabdinaasir Axmed Bashiir Saxansaxo ayaa wararkii ugu dambeeyay goor dhaweyd weydiiyay. cusmaanow aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. magaalada Nairobi war aad iyo aad maanta loogu dhagtaagayay ayuu madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta oo tabin toos ah kula hadlayay qalabka warbaahinta la iska arko ayuu ku sheegay in tallaabooyin dheeraad oo xagga bandowga la soo rogay 4 degmo oo dalka Kenya ka tirsan oo caasimada Kenya ay kamid tahay kuna jirta caasimada labaad ee Kenya ee Mombasa, Kwale iyo Kilifi dhammaanba guud ahaan 4taasi degmo wax gaadiid oo ka bixi karaay aysan jirin xagga cirka, dhulka iyo badaba ama biyaha. sidaasina lagu muddo 21 maalmood ay xaaladaas socon doonto si buu yiri loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. 16 qof oo cusub ayaa ku soo korodhay tiradii hore taasi oo wadarta ka dhigaysa 158 qof oo guud ahaan wadartii hore ah. 2 qof ayaa u dambeeyay oo maanta dhintay waxaana jira in dawladda sidoo kale ay qaadayso tallaabooyin dheeraad ah 2 bilyan oo shilin oo lacagihii laga soo dhiciyay dadkii musuqmaasuqa hore ugu qaatay dawladda howlgalla ay ku soo dhicisay ayaa loo duwayaa sanduuq loogu talagalay la dagaalanka bushiga coronavirus. sidoo kale lacagihii dawladda ay ugu talagashay gunooyinka socdaalka dibadda iyo gudahaba ayaa isla sanduuqaasi loo duwayaa. madaxweynaha waxa uu baaq gaar ah u diray beeralayda dalka oo yiri tabaciin iyo halkiisa ka sii wada si cuntooyinka daruuriga aan dalka looga weyn. gaadiidka kaliya ee 4taasi degmo oo waaweyn oo dad aad u tiro badan ay ku nool yihiin oo malaayiin ah gali kara ayaa ah kan cuntada gaadiidka cuntooyinka qutul daruuriga wada oo kaliya.